maanta oy taariikhdu tahay 14 Abriil maalin talaado ay tahay waxaan rabaa mar labaad inaan ka hadlo arrimaha cudurkan adduunyada jahwareeriyay culayska iyo dhibaatada badan keenay inaan mar labaad kala hadlo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka shacabka reer Koonfur Galbeed runtii walaalayaal ilaahay waxaan ka baryaynaa inuusan masiibadan iyo cudurkanba uu dhinac naga mariyo uusan noo keenin ilaahay ka baryaynaa kadib waad ogtihiin marxaladda maanta adduunka uu ku sugan yahay dawladihii adduunka oo dhan sida ay ula tacaalayaan iyo dhibaatooyinka ay ka marayaan waa ogtihiin annagana waxaan ka mid nahay adduunyadaas iyo bini aadankaas waxaan nagala rabaa inaan taxadir badan samayno inaan yeelno talada takhaatiirta ay ku talinayaan oo ah in la sameeyo guryaha lagu ekaado isu imaatinka la joojiyo la kala fogaado salaanta gacanta la isku salaamayo la joojiyo dadka ay xoogo isu jirsadaan haddii ilaahay nooma keeno qof bini aadan ah uu dareemo calaamadihii uu lahaa cudurka in uu gurigiisa joogo uu ka ilaaliyo dadka kale cudurka calaamadihiisa waa wixii aan naqaanay oo iska normalka ahaa oo hergebka la dhihi jiray oo dadka Soomaaliyeed ku dhici jiray asagii oo sun awaay marka ninkii dadka oo hayana ilaahay ka yasiro qofka hadduu dareemo inuu hergeb qabo ama uu qufacayo ama uu qandhanayo waxaa la rabaa inuu ka ilaaliyo dadka oo uu gurigiisa ku ekaado uu is ilaaliyo haddii uu soo daro oo ay noqoto in xumadii iyo quficii iyo wixii ay sii ziyaadaan waxaan ku talinaynaa inuu la soo xiriiro wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed uu u sheego uu yiraahdo arrintaas jirto ilaa iyo marxaladaasaan maraya si wixii ay u qaban karto wasaaradda oo gurmad caafimaad ay ugu qabato laakiin waxa ugu weyn oo la sheegay oo takhaatiirta adduunka sheegeen waxa waaye daawo ma leh daawadiisa waa ka hortag maxaa looga hortagi karaa waxa looga hortagi karaa number 1 in nadaafadda laga shaqeeyo nadaafatu nisfu iimaan wixii hore naloo faray ahayd in gacmaha la dhaqdo 20 daqiiqo kadib gacanta la dhaqdo in la kala fogaado oo la isku imaanin inaan la is salaamin in maxay ahaydee guryaha lagu ekaado oo isdhaxgalkii bulshadii iyo socodkii tirada badnaa iyo fadhi ku diriiradii iyo maxay ahaydee shirarkii iyo la joojiyo nin walbaba gurigiisa uu joogo waxyaalaha ka hortagga oo muhiimka ah oo looga hortagi karo hadda la sheegay intaas waaye waxaan codsanaynaa marka intaasba in laga taxadiro la suubiyo qodobka labaad annaga dad islaan ahaan nahay dad muslimiin ahaan nahay ilaahay baan tala saaranaynaa annagoon argagax iyo qalqal badan aanan dadka gelinaynin oo dadka iimaankooda iyo siduu u fiican yahay iyo wixii qadar ay lagu qanacsan yahay haddana waxaan rabnaa culimada Soomaaliyeed gaar ahaan culimada reer Koonfur Galbeed inay ilaahay la tuugo ilaahay la tala saarto quraan badan la akhriyo aafadan iyo musiibadan inuu ilaahay dhinac naga mariyo ilaahay loo tuugo dadka cid kasta oo culimo ahna intaas la isfaro lagana hadlo oo culimada ay sheegaan naftirkeeda waxaan sida ay sheegayaan dadka Soomaalida ah oo sida qaldan ay u sheegayaan muslimku ma dhaca iyo maxay annaga nooma iimaan kara iyo waxba naga ma taraay iyo aanan la dhihin culimada naftirkooda ay sheegaan saa la socotaan masaajidiyadii waaweynaa oo barakaysnaa baa la xiray xarameynkii baa la xiray kacbadii baa la xiray mako madiina la xiray arrimo daruufo jira awgeeda diinta islaamkana waa ogashay markay musiibadaas oo kala dhacdo in maxay ahayd nafta intii la taxadiri karo la taxadiro marka kulamadaas iyo isu imaatinkaasna hal la yareeyo culimadana waxaan faraynaa inay baaqna soo saaraan
diiniyan waxay ay ka qabtay diinta islaamkana ay u sheegaan shacabka ay ku wacyigeliyaan tan kalena ay maxay ahaydey quraan badan akhriyaan oo dadka quraan loo akhriyo oo ilaahay loo baryo inuu ilaahay uu ka qaado inuu ilaahay noo keenin inta uu hayana uu ilaahay ka qaado midda saddexaad waxaan kala hadlaynaa ganacsatada Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada reer Koonfur Galbeed ganacsatada Soomaaliyeed dawladda federaalkana waa la hadashay ra'iisul wasaarahana waa ka hadlay maciishada maadaama duruufahan adag soo maray dadka dad islaam ah waay bishii ramadaanna waa la galayaa cudurkan iyo dhibaatadaana waa la sheegay inay maciishada ayna qaaliyeenin ilaahay ay ka baqaan aysan u yeelin dhib baa dhacay dadkii baa la kala xaroonayaa maanta ka faa'iideysta aysan uga faa'iideysanin akhiradoodana ay fiirsadaan adduunyadoodana ay fiirsadaan wax hadda culays ah oo maciishada ku soo ziyaaday oo caqabada ma jiraan dawladda federaalka waxay ballan qaaday in maxay ahayd dekada ay ka soo degayaan raashinka canshuur dhaaf loo suubiyo wax raashin oo hadda hakadayna ma jiraan wax joogsadayna male raashimada iyo baabuurta waaweyn oo xamuulka waa furan yihiin cid diyaarad wax ku keensanaysa diyaaradihii kaargooga ah waa furan yahay marka ma garan karno wax sabab ah oo maciishada ama wax loogu dar ama wax loo qaaliyay ganacsatada Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada reer Koonfur Galbeed waxaan u sheegaynaa oo ka codsanaynaa oo faraynaa inay dadka walaalahooda waalidkooda wiilashooda shacabkooda oo masaakiinta ay u turaan ayadoo oo jiradana ay jirto haddana Ramadaan bishii barakeysnay la galaayo maciishada aanan looga faa'iideysanin duruufahan jiro ilaahigoodana ay uga baqaan inta hadda ay haystaan baa faa'iido ku filan ayagana waxaan faraynaa insha Allah inaanan maciishada waxbana lagu darin nin walba wixii uu hayo bareeska sidii uu ahaa lagu gado sababtoo ah wax hadda loo garaabi karo isbedel ah oo jiro ma jiraan sidaas darteeda ganacsatadana taasaan faraynaa insha Allah guddiga aan u saarnay oo task force-ga ah oo aan u saarnay cudurkan coronavirus-ka oo wasiirada iyo taqaatiirta iyo maamulada ka kooban ayagana waxaan faraynaa inay wacyigelin iyo dadaal tiro badan sameeyaan oo dadka wacyigeliyaan oo goob kasta tagaan oo la diyaariyo xarumihii karantiilka haddii ay timaado ilaahay naguma keeno loo sii diyaar garoobo wax alaali wixii kale oo la qaban karo ugu dambeyntii waxaan rabnaa inaan dawladda federaalka iyo dawladaha adduunka oo dhan oo waxaysto aan ka codsano inay sida ugu dhaqsaha badan ay noo soo gaarsiiyaan gurmad oo ka hortag iyo u diyaar garowba leh oon ugu diyaar garoobayna maadaama aan nahay dawlad goboleed aanan awoodina xaaladan culayska badan baahiyaheedii sidii lagu qaban lahaa marka waxaan codsanaynaa in cid kasta oo gacan naga siin karto oo arrimahan caafimaadka daawo ha noqoto qalabkii baarista ha noqoto qalabkii la xiranaya ha noqdo qalabkii taqaatiirta ha noqoto wax alaale iyo wixii kaalmo ah oo arrimahan ku saabsan ayadana waxaan ka codsanaynaa ugu horeysa dawladda federaalka iyo dawladaha dhan oo adduunyada dhan inay naga kaalmeeyaan oo na soo gaarsiiyaan wax alaale iyo wixii ay awoodi karaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.